yaal imarweyn marka hore waa salaamantihiin waxaan idinkaga mahad celinaynaa imaanshihiina iyo ka soo qaybgalkiina aad ka soo qayb gasheen wada tashigan iyo ansixinta waxa ahaa buugaagta manhajka xanaanada caruurta manhajka xanaanada caruurta muhiimadda uu noo leeyahay kulligeen waa naqaan waa qayb naga maqanay ahayd oo ilmaha xanaanada caruurta dhigto manhaj qaran oo dhammaystiran oo markaa loo dhigo ma uusan jirin waxaa loo dhigi jira manhaj kala duwan taas marka waxay keentay in ay qasab noqoto in la helo manhaj qaran oo ka tarjumayo ummadda Soomaaliyeed oo loo dhigay in la helo ayaa qasab ay noqotay marka muhiimadaas uu kulanka noo leeyahay ama maxay ahayd manhajka xanaanada caruurta ay noo leedahay waana meesha ugu muhiimsan ay tahay in laga soo bilaabo hagidda iyo dhisitaanka caruurta in laga soo bilaabo meeshaas waay marka aad uu muhiim u yahay manhajkan waxaa hore loo soo qabtay oo laga soo shaqeeyay waa ogtihiin siyaasadda manhajka xanaanada caruurta la soo dejiyay oo aad qayb ka ahaydeen iyo qaab dhismeedka manhajka xanaanada caruurta oo gooni loo saaray kadibna waxaa laga shaqeeyay muqarrarkiisa iyo syllabuskiisa in la diyaarsho oo qayb ka ahaydeen maantana waxaan u fadhinaa buugaagtii oo muxuu ahay macalinka buugga waalidka iyo buugga waxqabadka ama buugga activity-ga oo ardada ama caruurta loogu talagalay inay markaa ku shaqeeyaan buugaagtaas ayaa maanta noo diyaar ah oo la rabaa inaan markaa aan akhrino oo aan fiirfiirno marka joogistiina macnaha ay ku fadhiso waxa waaye in buugaagtaas markaa akhrisaan aad talo ku dartaan inputkiina maxaa ka maqan markaa fiirisaan qaab dhismeedka manhajka noo qoran markaad u fiirisaan wax laga tagay ma jiro qaab dhismeedkii manhajka isla aragnay hadda ka hor oo isla fiirinay oo aad ansixiseen ayay buugtan ka tarjumayaan marka buugaagta aad aragtaan ma ka tarjumayaan oo miro dhalkii laga rabay caruurta in aqoontaas ay gaarsiiyaan ma ku qoran yihiin oo ma soo saari karaan inaad ka fiirisaan oo aad aragtaan habka iyo gudbinta oo buugta ay u qoran yihiin oo la rabo caruurta in loo gaarana habkii la rabay miya mise waxbaa ka maqan marka waxaan rabnaa saddexda buugba inaad fiirisaan fariinta waalidiinta ama buugga waalidka inaad akhrisaan oo aad fiirisaan sababtoo ah waxa waaye waalidiintii ayaad ka mid tihiin buugga macalinka oo ah kan ugu muhiimsan oo aan rabno inaan hagno sababtoo ah macallimiinteena uma diyaarsano kulliyada hadda noo soo saarto xanaanada caruurta macallimiin ka shaqaysa ma haysano waqti dheer waddankeena waa iska burbursanaa waxaa ogtihiin marka waxyaabahaas oo dhan macalinka marka waxay tahay in si fiican loo hago fariintii oo u baahnaa aqoontii oo u baahnaa waxaasoo dhan in la siiyaa u baahannahay marka buugtan noo qoran oo khubarada ay noo qoreen oo aad u mahadsan ma ku jiraan waxaasoo fariin ah macalinka ma gaarsiinayaan ama ma awood siinayaan inuu awood u yeesho in caruurteena oo xanaanada caruurta joogto si saxa inuu wax u baro wixii u baahnaan u haysto waalidka sidoo kaleeto wixii fariin ah ama wixii information u baahnaa ma ku qoran yihiin buugaagta xanaanada caruurta taas marka waxa waaye muhiimadaas ay noo leedahay inaad nala joogtaan intaasoo ummaddaas Soomaaliyeed matalaysaan oo la rabaa barito in wixii ka soo baxo ayagoo dhan loo qaato go'aankaas ayaga loo qaato marka waxaan rabnaa muhiimad iyo mas'uuliyad weyn aan idin saaran waxaan rabnaa labada beri aan isla joogno inaad aad u fiirisaan oo muxuu ahaay aan la dhaliilsan oo la fududaysan hadduu ilaahay idmo waxaa hadda la qoray marka buugaagta waa hal buug waa wax la qoray hal buug maado walba hal buugaa loo qoray waa waalidka oo macalinka iyo maxaa la dhihi jiray xanaanada waalidka oo loo qoray labada heerba laba buug oo kala duwan marka meeshaas waxaa ka soo baxaysa waxaan u baahannahay in buugaag la qoro dadka qoraaga macallimiinta meesha joogta waxaa la rabaa inay wax qoraan in la soo saaro buugaag badan in la soo saaro waxaa arkaysaa macallimiin fara badan Kenyadana noogu dhow haddaad tagno waxaa arkaysaa intaasoo serious oo sheekooyin ah oo buugaagta dugsiyada hoose loogu talagalay
intaasoo macallin intaasoo waxa la helaa oo sheekooyin oo qoran oo serious oo mid walba taxna oo laga faa'iideysanayo oo waafaqsan maxaa la dhahay qaab dhismeedkooda manhajka waafaqsanaa la helaa annaga si la mid ah macallimiinteena waxaan u baahannahay inay wax qoraan oo ayagoo raacayo qaab dhismeedka manhajka ayagoo raacayo inay wax qoraan buugaag soo saaraan oo markaa annagana aan ku dhiirigelin hadduu ilaahay marka arrintaas waxaan ku dhiirigelinaynaa oo maxaa la dhihi jiray aan leenahay macallimiinta iyo dadka xanaanada carruurta ka shaqaynaya inay wax qoraan buugaag ka duwan buugaagtan in la qoro si loo helo resources ama tixraacyo kala duwan si loo helo arrintaas ayadaana waa muhiim marka aan buugaagtan aad akhrisaan oo hadduu ilaahay tayadii la rabay ay gaaraan ay ku baasaan natiijadii ay qaataan maxaa noo xigayo oo ku xigo shaqadan maxaa noogu xigayo waxaa noo xigi doona hadduu ilaahay idmo hadda buugaagtiyaa la soo saaray xanaanada carruurta dugsiyada kaleeto caadiga la mid ma ah sabuuradda macallinka inta istaago cashar ma dhigayo oo ayagana ma qoranayaan waxay u baahan yihiin wax la yiraahdo agab ay ku ciyaaraan agab wax lagu baro waxaa noo xigaya marka in la diyaarsho teaching learning aidskii oo buugaagtan noogu jiray waxqabadyada meesha ku qoran activitieska meesha ku qoran wixii ay u baahnaayeen oo lagu shaqay lahaa in la diyaarsho oo laga soo saaro listiga materialkii la soo gado la diyaarsho la daabaco wixii loo baahnaa la diyaarsho marka maxaa intaas xigo waxa waaye in la soo saaro buuggii macallinka lagu tababari lahaa module macallinka xanaanada carruurta loogu talagalay in lagu tababaro in la soo saaro isla markaasna la tababaro macallinka naftirkiisa macallimiinta xanaanada carruurta joogto in la tababaro tababar la siiyo buugaagta la soo saaro iyo siday u shaqaynayaan iyo sida la rabo in ardada wax loogu dhigo in lagu tababaro kabacdi waxaa xigaayo in la dhaqan gelsho manhajka oo xanaanooyinkii ay qaataan ay dhaqan gelshaan ay ku shaqeeyaan inta ka horeyso intaan hadda noo diyaarsan ayaan ku shaqaynaynaa hooshana waa socon doontaa hadduu ilaahay idmo marka waxaan rajaynaa xanaanada carruurta dugsiyada xanaanada carruurta oo nala joogo maanta inay markaa fursad fiican u tahay oo ay u tahay wax muddo dheer ay sugaayeen manhaj muddo dheer ay sugaayeen maanta in gacantooda uu ku jiro oo markaa ay fursad u tahay oo ay tahay inay runtii si fiican u fiirshaan akhriyaan oo wax badan ay ku daraan hadduu ilaahay idmo waa mahadsantihiin waxaan rabaa in aan dhaho shirkeena iyo kulankeena waa uu noo furan yahay soo dhowaada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته